Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro oo kamid culimada waaweyn ee Soomaaliland oo xaalad caafimaad u jiifa mid kamid cisbitaalada dalka dibadiisa ayaa maanta oo Khamiis waxa markaliya baraha bulshada lagu soo qoray qoraal ay ka naxeen guud ahaanba ummadda Islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed kaas oo sheegaya in uu geeriyooday Sheekh Aadan Siiro bulshada Soomaaliland ayaa ay naxdin ku noqotay qoraalkaasi oo mar dambe ay beeniyeen qaar kamid ah ehelada Sheekh Aadan Siiro haddaba siyaasiyiintu iyagu markaliya bogagooda Facebook kula degdegay tacsida Sheekh Aadan Siiro ayaa waxa kamid ah Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo afayeenka xisbiga muxaafadka ee Kulmiye ayaa markaliya waxa ay shacabka Soomaaliland ku warheleen isagoo afayeenku bogiisa Facebook ku soo qoray tacsida Sheekh Aadan Siiro oo nool isla dhowr daqiiqo kadib ayaa markii ay sheegeen qoyska Sheekh Aadan Siiro in uu nool yahay waxa uu sheegay in Facebook lagu soo qoray qoraalka tacsida sheekha uu yahay mid been abuur ah balse taas xaqiiqada way ka fogtahay xildhibaan Jaamac Caana Boore oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isaguna kamid ahaa dadka soo qoray tacsida sheekha Sheekh Aadan Siiro waxa uu kamid yahay culimada sida gaarka ugu suntan samafalka iyo ka hadalka danta guud ee ummadda waxaanu sheekhu maanta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka uga baahan yahay duco balse uma baahna been abuur laga sheegayo in uu sheekhu dhintay isaga oo nool